waxaa jira tilmaamo ama qiyaasad muujinaya inuu dhici karo isbeddelo waaweyn oo guud ahaan dunida saameyn kara. waxaa muuqata in dunida xilligan ay u qaab eg tahay oo ay shabahayso waqtigii uu dhammaadka ahaa dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1945. kadib dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka waxaa la sameeyey oo dhashay nidaamyo cusub oo caalami ah, waxaana ka mid ahaa qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka. dhammaan nidaamkani cusub waxaa hormuud u noqday dowladda Mareykanka. sababta Mareykanka uu u noqday hogaamiyaha nidaamkani cusub ee xilligaasi la yagleelay ayaa waxa uu ahaa kadib markii dowladihii xilligaasi uu ka dhaadhiciyey inuu isagu kaliya yahay faafiyaha ugu weyn ee dimuqraadiyadda iyo ilaaliyaha xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. si kastaba dowladda Mareykanka wax ka badan nus qarni ayaa waxa uu yahay hormuudka nidaamka cusub ee caalamiga ah kadib dagaalkii labaad ee adduunka iyo burburkii midowgii Suufiyeed ee sanadkii 1990. haddaba qarnigan 21aad Mareykanka waxa uu wajahayaa hoos u dhac weyn marka la eego dhammaan heerarka kala duwan ee dhaqaalaha, ciidanka iyo saamaynta caalamiga, halka ay soo baxayaan tartamayaal cusub sida Shiinaha, Ruushka, Hindiya iyo dalal kale. tani ayaana adduunka maanta ka dhigaysa in la taagan yahay xilli kala guur ah. arrinta ugu khatarsan kaliya ma aha in Mareykanka uu tartamayaal cusub la kulmayo, balse waxaa jira in gudaha dalka Mareykanka uu si xoog leh ugu dhex ifayo oo uu ku dhex faafayo fikir cusub oo lagu magacaabo Black Enlightenment, macna ahaanna ah iftiiminta mugdiga. wuxuu dhaqdhaqaaqan fikriga ah ee ku dhex faafaya gudaha Mareykanka si toos ah u diidaya xeerarka Mareykanka iyo dowladaha xulafada la ah. haddaan si kale u dhigo, wuxuu dhaqdhaqaaqan dhaliilaya oo diidaya nidaamyada dimuqraadiga ee dowladaha galbeedka, wuxuuna u ololeynayaa nooc ka mid ah talisyo cusub oo dunida ka dhasho. fikradahani ayaana helaya taageerayaal badan gudaha Mareykanka, mana ku koobna oo kaliya dad shacab ah, balse waxaa jira madax iyo siyaasiyiin sare oo maanta door hogaamineed ka haya Mareykanka kuwaasoo taageersan dhaqdhaqaaqani. sidoo kale gudaha Mareykanka iyo dalalka Yurub waxaa ka samaysmay ururo bulshooyin isku tagay oo iyagana diidan nidaamka uu Mareykanka hogaamiyo. ururadan ayaana samaysmay kadib bilaabashadii dagaalkii gumeystaha Israa'iil iyo Falastiiniyiinta 7 Oktoobar sanadkii 2023, kadib markii Mareykanka uu taageero buuxda siiyey Israa'iil, qaybna uu ka noqday xasuuqa shacabka Falastiiniyiinta. dagaalka Gaza Falastiin ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu falxun uguna xadgudubka badan ee aan horay taariikhda loo arkin. dagaalka Gaza ee shacabka lagu gumaadayo ayaa wuxuu noqday dagaal jabiyey dhammaan sharciyadii dunida, qiyamkii aadanaha ee diiniga iyo bini'aadantinimada, wuxuuna dagaalkan fure u noqday duni cusub oo ka fogaatay insaaniyaddii bini'aadantinimadii. waxaa xusid mudan intan iyo markii uu bilowday dagaalka Falastiin 7 Oktoobar sanadkii 2023 ilaa xilligan uu dhaliyey saameyn xooggan oo ka mid ah inuu burburay dhoolatuskii reer galbeedka ee ku saabsanaa xuquuqda aadanaha, dimuqraadiyadda iyo cadaaladda. intaa waxaa dheer in markii uu kursiga ugu sareeya Mareykanka ku soo laabtay Donald Trump uu la yimid isagoo wata ajandooyin u eg afgembi ballaaran oo ka dhan ah qiyamkii uu Mareykanka sheegan jiray inuu difaacayo isagoo ah ilaaliyaha nidaamka caalamiga ah. Donald Trump wuxuu faraha la galay dhaqaalaha dunida, wuxuuna maamulkiisa ku dhawaaqay canshuur kordhin kaasoo saameeyey in badan oo dunida ah. si gaar ahna wuxuu saameeyey dalka Shiinaha oo ah dalka ugu weyn dunida ee wax dhoofiya, isagoo sanadkii dhoofiya badeecooyin qiimahooda lagu qiyaaso 3.5 trilyan. dhammaan arrimahan oo isbiirsaday ayaa muujinaya in isbeddelo waaweyn dunida ku soo socdaan. dhaqaalaha Shiinaha ayaa si xooli ah u kordhaya. in Shiinaha dhaqaale ahaan uu xoogiso waxay ka dhigi kartaa inuu noqdo hogaamiye cusub oo saameyn ku yeelan kara ka muuqan kara masraxyada siyaasadaha caalamiga. dhinaca kale, dhaqaalaha waa laf-dhabarta isbeddeladii waaweynaa ee taariikhda dunida, waana sababta Mareykanka u noqday hogaamiyaha nidaamka caalamiga kadib dagaalkii labaad ee adduunka. qaar ka mid ah tilmaamaha muujinaya inuu dunidu isbeddel ku soo socdo waxaa ka mid ah kobacyada dhaqaale iyo tiknoolajiyadeed ee ka muuqda dowladaha diidan nidaamka uu hogaamiyo Mareykanka. intaasi waxaa dheer inay dowladaha diidan nidaamka Mareykanka samaysteen isbahaysi siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo lagu magacaabo BRICS, kaasoo dhidibada loo taagay sanadkii 2006. astaamahan ayaa sidoo kale muujinaya in adduunku si tartiib ah ugu socdo isbeddel nidaami ah oo haddii dhacdo aan cid kaliya ku amartaagleen doonin oo gacanta u geli doonin sida hadda ay tahay, balse sida saadaashu tahay uu noqon doono mid loo dhan yahay. astaamaha iyo muuqaalada isbeddelka caalamiga ah ee la qiyaasayo la filayo ma noqon doono isbeddel degdeg ah oo hal mar kaliya dhaca, balse wuxuu noqon doonaa safar dheer oo laga yaabo inuu qaato 10 sano ama ka badan. inkastoo nidaamka uu Mareykanka hogaamiyo weli yahay kan ugu awoodda badan, haddana waxaa la qiyaasayaa in dhabarjabin degdeg ah oo aan horay loo filaynin kaga imaan karan dowladaha Shiinaha iyo Ruushka. haddii qiyaasaadkaasi suurtagal noqdaan oo nidaamkii Mareykanka ay soo bilowday kadib dagaalkii labaad ee dunida meesha ka baxo, waxaa huwanta China iyo Ruushka hogaaminayaan laga sugi doonaa nidaam caalami ah oo ka waxtar iyo cadaalad badan kii uu hoggaanka u hayay Mareykanka. kadib dagaalkii labaad ee adduunka waxaa soo baxday awoodda Mareykanka kadib markii fagaarayaasha dhaqaalaha iyo militariga uu isaga kaliya si xoogan uga soo muuqday, taasoo dowlado badan la yaab iyo mucjiso ku noqotay. kadib muuqashadiisii Mareykanka oo horjoogaha dowladaha ugu awoodda badan dunida ayaa waxa uu xilligaas kadib
dib u haweyn ku sameeyey siyaasadihii dunida kadib markii uu helay fursad ah inay intooda badan dowladihii awood ahaan ay sinnaayeen dhaqaalahooda ku burburay dagaalkii labaad ee dunida ayna ahaayeen kuwa daalan. dib u habeyntii Maraykanka waxaa qayb ka ahaa inuu xiriir la samaystay in badan oo dowladaha dunida ah isagoo heshiisyo dhinacyada dhaqaale iyo militariga la galay.